الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله، ترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فسلك سعداء من أمته على نهجه القويم وضل عنها المبدلين. وبعد، ولا ليال intiina la socotay barnaamijkii fiqhu siira ayaa waxaa bartamaha looga jirnay xilligii uu dhashay nabigeena calayhi salaatu wasalaam, bisha ay ahayd iyo maalinta ay ku beegnayd oo nabigeena uu dhashay calayhi salaatu wasalaam. waxaanu hore u soo qaadanay khilaaf ku sugan taariikhda dhalashada nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo sida ugu raajixsan inay tahay maalin isniin ah uu nabigeenu dhashay calayhi salaatu wasalaam. bishuna ay ahayd bishan la yidhaaho rabiicu alawal ayuu ku dhashay nabiga calayhi salaatu wasalaam, wuxuuna dunida nabigeenu ku soo biiray calayhi salaatu wasalaam isagoon indhihiisa saarin aabihii oo la odhan jiray cabdullaahi, oo aabihii uu ka geeriyooday nabiga calayhi salaatu wasalaam isaga oo caloosha hooyadii ku jira. marka waxaa kaloo aanu soo qaadanay xilligaas uu nabigeenu dhashay calayhi salaatu wasalaam ee bisha rabiicu alawal 12 in maaragtaahay ay mustaxab tahay oo ay wanaagsan tahay in dadka muslimiinta ahi ay ixtifaal iyo dabaaldeg u sameeyaan dhalashadii nabiga calayhi salaatu wasalaam mawlidkiisii, iyaga oo markaa sanadkii bishaas rabiicu alawal muslimiinta u sharxaayaan juhdigii iyo halgankii dheeraa oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu diinta u soo maray, kuna tarbiyeynayo carruurta iyo jiilka soo korahaya siday u jeclaan lahaayeen nabigooda calayhi salaatu wasalaam. arrinkaas ixtifaalka ah oo mawlidka nabiga la sameeyo bisha rabiicu alawal 12 ayaa culimmadu waxay saldhig uga dhigeen kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam. maxaa yeelay waxaa kitaabka ilaahay uu muujiyey in lagu farxo nabiga calayhi salaatu wasalaam. qul bifadli illaahi wa biraxmatih fabidaalika falyafraxuu, wuxuu yihi allah subxaanahu wa tacaala waxaad ku tidhaahaa nabiyullaahi maxamed ee ummadda sala allahu wasalam calayhi, fadliga ilaahay o naxariista ilaahay fabidaalika falyafraxuu, ha ku farxaan dadku fadliga ilaahay iyo naxariista ilaahay. naxariistaas ayaa waxa uu ku fasiray sheekhan la yidhaaho ibnu siriin iyo abu thawr, labadooduba ay ku fasireen in loola jeedo nabigeena calayhi salaatu wasalaam. maxaa yeelay meelo fara badan oo qur-aanka ka mid ah ayaa nabiga lagu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam naxariis inuu yahay, sida wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. marka ilaahay wuxuu na amrayaa subxaanahu wa tacaala inaanu farxad muujinay oo rayn aanu ku raynayno nabigeena calayhi salaatu wasalaam inu ku faraxsannahay. marka waxaa meelka dhac ah dadka qaarkood inay muslimiinta ku abuuraan khilaaf iyo tashwiish iyo muslimiintii in la kala qobqobo oo axzaab loo qaybiyo ayaan habboonayn. dadka qaar ayaa khilaaf ummaddii ku abuuray oo nabigoodii calayhi salaatu wasalaam ixtifaalka ay u dhigahayaan sanadkiiba mar, isku dayahayo inay nacsiyaan oo saaxada sunnada ay ummadda ka fogeeyaan. qaarkoodna xataa ay ku tilmaamaan xilligii uu nabigu dhashay calayhi salaatu wasalaam muslimiintaa sadaqada la baxaysa ama siirada nabiga akhrisanaysa inay yidhaahaan waa ciiddii gaalada oo kale waxa ay muslimiintu dhigahayaan, taas oo meelka dhac ku ah sharafta dadka muslimiinta ah iyo siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo taariikhda iyo kitaabkii sunnada intaba meel looga dhacay ah. maxaa yeelay in ugu tilmaamo nin muslim ah ee meel fadhiya
سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يهلجن في مدة كشكيناية آيات القرآن آخريناية صدق الله بحاهية من لغة الماء بغن كيس ودغن كي قالب أوكالي هذا الكاس وحو كسو فل كره وقف عن عقل يسو سيدا أوقع كبيرين قلنا أقوان دينيد إليه سكداية ومان كيسو قابنيه marka waxa loo baahan yahay walaalayaal waxyaalahaas oo kale in laga digtoonaado muslimiinta aan khilaaf laga abuurin loo daayo dadka muslimiinta ah sida ay maaragtay u tashriifinayaan ama ay jecel yihiin nabigooda calayhi salaatu wasalaam casharkaasna horay ayaan uga soo hadalnay in xataa sheekhan la yidhaaho ibnu taymiya uu ixtifaalka ku ogolaaday kitaabkiisa la yidhaaho iqtidaa'u siraad almustaqiim marka walaalayaal muslimiinta ayaan lagu abuurin tashwiish dadka muslimiinta ah daa'iman xataa boqorkii la dhihi jiray almeliku almudaffar oo ilaa qarnigii shanaad iyo qarnigii lixaad intii u dhexaysay meelaa ayaa wuxuu ahaa boqor aad u weyneeya nabiga calayhi salaatu wasalaam xilligii uu dhashay hanti fara badanna uu ku bixin jiray boqorkaa marka uu ka sheekeynayey حافظ ابن كثير كتاب في البداية والنهاية وحاو كتل مامي من أهل الخير إنوها شيخا لإله الذهبي كتاب في سير أعلام النبلاء يسوي نفسه شو مرء الملك المظفر كهد الله وحاو كتل مامي إنوها وحير وكان سنيا سني أيها يريد سنة النبي عليه الصلاة والسلام أجل كنت ذلك جري ويشاوي إمام الذهبي إلى مولد كان النبي عليه الصلاة والسلام واحتفال كان النبي هنتفر الدوان كل حجري مركز هدنا وحدغبي وكان سنيا من سنية وها ويحب إزالة المنكرات وحنجع الله منكر كان لا تتعلمه إلا زوليه مركز ما دام إمام ذهبي وكتل المعين كان مولد كان النبي يومين جري وبلشد النبي عليه الصلاة والسلام من سنية وهي وذلك مولد كان بيجي جري ولماذا إسلام كتل المعين جري ذات سنيين إنه وحمل كبعة إن ذلك المولد في احتفال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنت اللي ذكر معه قد بدعاء أنا مبتدعون إليهم تاسنا وأن قابلنا في أقوان يري كتاب في السنة عن أقوان سلاسة عن ليلهين مركب إنه هل كي نكسي ودنا إنه بل شد النبي عليه الصلاة والسلام أي النبي عليه الصلاة والسلام مركب بشيء عادة عرفته حلقة وحيا هيد in ay caruurtooda u raadiyaan ruux baadiyaha ku soo nuujiya maxaa yeelay xilligaas carabta waxay u arkayeen cunugu hadduu ku barbaaro magaalada oo magaalada maaragtay uu ku koro inay uga wanaagsan tahay inuu baadiyaha naaska ku soo nuugo oo halkaa uu ku soo barbaaro maxaa yeelay waxay arki jireen in caruurta ku soo barbaarta baadiyaha ay ka firfircoon yihiin kana xoog badan yihiin kana aragti dheer yihiin kana adkaysanoo badan yihiin kuwa magaalada ku barbaaray ayay carabta xilligaa u arki jireen saas awgeed ayaa haweeney la oran jiray xaliima bintu abi ducayb oo ka dhalatay qoladan la yidhaha reer bani sacad ayaa haweentaasi waxay ku guulaysatay in nabigeena calayhi salaatu wasalaam ay naaskeeda muujiso ayay ku sharafayday guulna ay ku gaartay haweentaas ayaa sida kutubta taariikhda ay sheegaan waxay la socotay haween kale oo dhammaantood doonahayay carruur ay muujiyaan oo lacag ay ku qaataan marka xaliimatu sacdiya iyadu way weyse cunugay lacag ku qaadato nabigana calayhi salaatu wasalaam isagoo dhalaha oo dharaftiisii ku jira ayaa haween kastaa intay soo dul istaagtay ka laaban jirta markii la yidhaaho waa agoon oo waxay markaa isdhihi jireen agoon lacag sidaas ka heli maysaane iska daayo xaliimatu sacdiya weysay markaa wax aruura oo ay muujiso ayaa nabigeena soo dul istaagtay calayhi salaatu wasalaam waxayna kala tashatay ninkeedii waxayna ninkeeda iyada isku waafaqeen inay qaataan nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ay soo nuujiyaan laakiin waxay ahayd qorshayn ilaahay subxaanahu watacaala uu qorsheeyey inuu u qadaray inay xaliimatu sacdiya ku guulaysato nuujinta nabigeena calayhi salaatu wasalaam xaliimatu sacdiya ayaa halkaa ka qaaday nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaana markaa xaliimatu sacdiya ula kacday nabiga calayhi salaatu wasalaam dhinacii ay deganaayeen ee carrigii baadiyaha
ayay ula kaceen. xaliimatu sacdiya ayaa xilligaas deegaanka ay deganeed oo baadiyuhu waxa uu la leecleecahayay abaaro dhulka baadiyaha xilligaas aad ugu dhuftay oo aad maaragtay u waxyeeleeyey dhaqaalihii baadiyaha xilliga. markii nabigeena la geeyey calayhi salaatu wasalaam nafaxaad fara badan iyo barakaad fara badan ayay halkaa xaliimatu sacdiya ay ku aragtay. waxay aragtay markii hore bahaarkii ay wadatay markii nabigii calayhi salaatu wasalaam ay saartay inuu dameerkii soo xoogaadahayo oo dameeradii kale uu ka orod badinahayo ayay aragtay. waxay indhaheeda saartay markii naaska nabiga calayhi salaatu wasalaam ay afka u saartay in naaskii intii hore uu ka caano badan yahay. waxay aragtay markii baadiyihii ay geyshay xaliimatu sacdiya in gurigeeda hareerihiisii oo dhan aaran uu noqday oo barwaaqo uu noqday. marka barakadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay saamaysay baadiyihii reer banu sacdi ayay saamaysay dhammaanteed. maxaa yeelay taas waxyaabay kuma jiraan, sababta oo ah shareecada islaamka ayaa waxayna amartay markii xataa roobka la waayo in dadka saalixiinta ah barakadooda lagu roob doono iyo ahlu beytka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyada oo la rajaynayo inuu ilaahay subxaanahu watacaala dacayaadka u aqbalahayo. xataa roobka markii la waayo dadka wanaagsan ee saalixiinta ah oo barakada leh oo ilaahay ku xiran subxaanahu watacaala in lagu roob doono iyaga oo la yidhaaho ilaahay qofkaa barakadiisa iyo wanaagga agtaada ku leeyahay roob nagu sii in la yidhaaho ayaa shareecadu na amartay. waana ijmaac, waxaana arrinkaa ku ijmaacay jumhuur al-a'ima waalfuqahaa. waxaad ka tixraaci kartaa fatxulbaariga juska 2 naylul awdaar isagana juskiisa 3 ayaad ka tixraaci kartaa. waxaa kaloo ijmaaca qiray muqniga uu iska leeyahay sheekhan la yidhaaho ibnu lqudaama. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam maadaama uu ahaa nabi aad u barako badan ayaa barakadiisii waxay saamaysay degaankii oo dhan. xilligaas wuxuu nabigu ku gaaray calayhi salaatu wasalaam gurigii xaliima asacdiya ilaa 4 sano ayuu ku gaaray. markii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu 4 sano gaaray ayuu wuxuu jeclaystay xaliimatu sacdiya carruurteedii inuu ariga la soo ilaaliyo oo ariga uu raaco ayuu jeclaystay. markuu arigii xaggiisa aaday ayaa waxa dhacay xaadisada la yidhaaho xaadisatu shaqi sadri oo imaamu muslim uu ku wariyey saxiixiisa. xaadisada shaqi sadri ayaa waxay ahayd nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo arigii agaarkiisa taagan ayaa malaa'ig 2 nin isku soo ekaysiisay ee dhar cadcad wadata samada ka soo degan. nabiga ayay jeefiyeen calayhi salaatu wasalaam qalbigiisii xabadkiisii ayay dillaaciyeen. waxay ka soo saareen meeshii shaydaanku uu dadka ka waswaasin jiray ama dadka uu ka fasaadin lahaa oo qurankii shaydaanka ayay ka saareen. markaas iyagoo xikmad iyo meesha uga buuxiyey ayay halkii haddana isugu celiyeen xabadkiisii. markaasay gacantii ka mariyeenoo qof la qalay iyo qof maaragtaa la dhibaateeyey iyo midna isagoon u ekayn ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam halkaas uu ka soo istaagay. waxaa arrintan ayaa walaalayaal waxaa lagu tiriyaa mucjizaadka nabigeena calayhi salaatu wasalaam. maxaa yeelay dee qofku markii isagu qalin lagu sameeyo intaasoo bilood ayuu meel yaallaa oo la daaweeya. laakiin malaa'igtan ilaahay uu soo diray subxaanahu watacaala markii nabigeena calayhi salaatu wasalaam xabadkiisa ay dillaaciyeen wax dhibaato ah nabigu ma dareemin calayhi salaatu isla markiiba gurigii ayaa nabiga loo yeeray isagoo xataa meeshii aan laga dareemaynin meeshana la qalay iyo meeshana la dhaawacay iyo midna aan laga dareemaynin bifadli illaahi subxaanahu watacaala. markii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay arrintaasi ku dhacday
أي حليمة السعدية وحي أغعبستي إن مركز جن وحوال لقبق الجري وحن إنه جن يهين إلا بدك مركز ملائكي إلهي سبحانه وتعالى أقوم أمرهم حل جاهلية أيها اللي بجري مركز حليمة السعدية وحي يستري جن أمري وحي يلكن كل عي وحدث في سبيل الله عليه أيها أهلمنا كبق ذي أي دب وعلس حليمة السعدية نبي هو يدي وحل قام وليد اللي رنجري آمنة بنت وهبي نبي هو يدي عليه الصلاة والسلام وحاول جوغي حل ذاك بعد الله بسنه مركي واللح سنة قارنا نبي عليه الصلاة والسلام الجوريتي نبي هو يدي آمنة بنت وهبي وحنا النبي عليه الصلاة والسلام حضانadiisii iyo dhaqaalihiisii gacanta ku dhigay nabiga ayeeyihii oo aabihii dhalay oo la oran jiray Cabdulmutalib oo xilligaas ahaa odagii ka nabadoonin jiray heer Quraysheed oo dhan ayaa aad u jeclaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam Cabdulmutalib ayaa wuxuu ahaa mid aad looga haydeysto oo dadku ay ka baqaan ay ka haydeystaan darinta uu ku fadhiyo carruurtu soo ma geli jirin laakiin nabigeena calayhi salaatu wasalaam jacayl uu jecel yahay ayuu darintii uu soo gelin jiray oo baalkiisa ayuu fariisin jiray nabigeena calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa Cabdulmutalib wuxuu ahaa ayeeye wiilkiisii ayaa u reebay oo da' kale uga tegin isaga maahan marka wuxuu ka fiirsanayaa wiilkiisii ayuu ku xasuusanayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam marka ayeeyihii Cabdulmutalib wuxuu hayay isaguna 2 sano ayaa ayeeyihii sidaa uu hayay 8 sano markii ay nabigeena calayhi salaatu wasalaam ay u dhamaystirantay ayaa waxaa ka geeriyooday haddana ayeeyihii Cabdulmutalib ayaa geeriyooday markii ayeeyihii Cabdulmutalib uu geeriyooday 8 sanana uu jiro ayaa waxaa gacanta ku dhigay xadaanadii nabiga calayhi salaatu wasalaam adeerkii oo la oran jiray Abu Taalib adeerkiis ayuu la noolaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaa uu maaragtay nabigu ka qaangaaro oo nin weyn uu ka noqdo ayaa waxaa xadaanaynayay gacantana ku hayay nabiga adeerkii calayhi salaatu wasalaam adeerkan ayaa isaguna wuxuu aad u jeclaystay nabigeena calayhi salaatu wasalaam waana arrin ilaahay uu wada subxaanahu watacaala waxaa weeye xadaanadaas iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam la jeclaado oo la xadaaneeyo oo lagu dadaalo korriimadiisa iyo dhibaatooyinka laga ilaalinayo ilaahay ayaa dadka quluubta arrimaha uga beerhayay marka nin kasta ama ayeeye ha noqdo ama adeer ha noqdo nin kasta oo nabiga kafaalo qaada calayhi salaatu wasalaam oo xilkiisa la wareegada aad ayuu nabigu u jeclaanayay calayhi salaatu wasalaam nabigu markii uu gaaray da'da 12 sano 12 sano markuu gaaray ayaa adeerkii Abu Taalib waxa uu u safray arriga Shaam ganacsade ayuu ahaa adeerkii ganacsi ayuu maaragtay doonayay inuu arriga Shaam ugu aado maadaama uu aad u jeclaa Abu Taalib wuu watay nabiga calayhi salaatu wasalaam si uu ugu raaco arriga Shaam kaasina waxa uu yahay walaalayaal safarkii ugu horreeyay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam magaalada Maka uu dibadda uga baxo oo dhulka Shaam uu aado ayuu noqday safarkan safarka uu Shaam nabigu uu tagayay calayhi salaatu wasalaam ayaa da'diisu waxay ahayd 12 sano nimankii ganacsiga waday ee Abu Taalib uu ku jiray markii ay degeen magaalada la yiraahdo Basra ay waxay soo agmareen nin kutubtii hore iyo taariikhii hore aqoon u leh ee raahida ay soo mareen ninkaas oo la oran jiray Buxayra wuxuu ninkaasi aqoon dheeraad uu ku yaqaanay kitaabkii Injiil ee lagu soo dejiyay nabiyullaahi Ciise ee ka hadlayay kana warramayay taariikhda nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayuu ninkaas aqoon dheeraad u lahaa wuxuu kale ninkan khibrad weyn u lahaa diinta nasaarada
ninkan raahibkan Buxayra ayaa arkay innahana saaray nabigeena calayhi salaatu wasalaam markaas ayuu wuxuu isku fiiriyaa kitaabkii injiil tilmaamihii uu qorayay oo nabigeena uu ka bixinayay calayhi salaatu wasalaam inuu dhalan doono iyo nabiga ayuu isku fiiriyaa kabacdi ayuu wuxuu fiiriyey Abu Taalib ayuu fiiriyey ninkii raahibkii Buxayra wuxuuna yidhi wiilkani muxuu ku yahay wuxuu yidhi waa wiilkaydii Abu Taalibna mar walbaba dadka wuxuu ku dhihi jiray waa wiilkaydii maxaa yeele aad ayuu u jeclaa Buxayra oo taariikhda isagu la socda ayaa yidhi maa huwa bibnik wamaa yanbagii an yakuuna abu hada algulaami xaya wiilkaaga ma aha buu yidhi mana suurto gelaysuu yidhi wiilkan aabihiis inuu noolaado maxaa yeele kutubtii hore ayuu taariikhdan ku hayaa isagu markaasuu yidhi waa yahaye adeer baan u ahayo walaalkaygaa dhalay uu yidhi wuxuu yidhi ninkii raahibka ahaa aabihii xaggee aadi wuxuu yidhi aabihii waa dhintay isagoo hooyadiis uurka ay ku sido Buxayra ayaa yidhi run baad sheegtay buu yidhi tilmaamihii kutubtii hore sheegaysana waa laga helay wiilkan kula socda waa wiilkii aakhiru zamaanka nabiga u ahaa ee khaatam alambiyaa ahaa ee ambiyada dhan lagu khatimay weeye oraya dib uga laaba buu yidhi oo magaaladii ku celi waxaadna ka digtoonaataa buu yidhi nimanka yahuudda ah inay indhaha saaraan oo ay arkaan oo ay xaasidaan oo kabacdina ay dilaan ka digtoonaay buu yidhi waxay leeyahay buu yidhi wiilkan aad adeerka u tahay arrin ayaa ka soo bixi doona buu yidhi ee orod oo la aado gurigii iyo deegaankii aad ka timid ku celi Abu Taalib ayaa magaalada Maka markaas kula laabtay nabiga calayhi salaatu wasalaam Abu Taalib marka safarkiisaas ee Shaam uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu waday ayuu wuxuu ka soo faa'iidaystay wiilkan la socda inuusan ahayn wiil caadi ah wuxuu kaluu ka soo faa'iidaystay yahuudda inay xaasidayaan maxaa yeelay yahuudda iyagu waxay jeclaayeen oo ay ictiqaadsanaayeen in nabiga aakhiru zamaanka soo bixi doona ee ambiyada dhan lagu khatimi doono in iyaga uu ka dhashay oo nabi yahuuda ka dhashay inuu yahay ayay jeclaayeen muddana ay sugahayeen marka haddii la yidhi wiilkii carabuu ka dhashay oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay sugayseen carabuu ka dhashay haddii la yidhaaho way dilayaan xaasidnimo awgeed marka magaalada Maka ayuu Abu Taalib dib ugu soo celiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuulku 12 sano markuu gaaray kabacdi ayuu soo kadcahay oo da'diisa iyo caqligiisuba soo ziyaadahaya wuxuu bilaabay kabacdi nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu shaqaysto maxaa yeelay weligiiba nabigu wuxuu necbaa calayhi salaatu wasalaam qof bini aadama isaga la mida inuu gacanta u hoorsado oo waxsii uu yidhaaho sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam kamid ba ahay intuu dhalinyarada ahaa iyo markuu gaboobay iyo markii waxyigu uu ku soo degay iyo waxyigu intuusan ku soo degin ka horba nabigu uu ka soo horjeeday sunnadiisana kamid ma ahayn wuuna diiday bini aadam in la su-aasho oo gacanta loo horsado wuxuu marka bilaabay nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu shaqaysto irsaaqad uu raadiyo wuxuu nabigu ilaalin jiray calayhi salaatu wasalaam ari mar uu nabigu asaga nafsadiisu iska sheekaynayay ayuu wuxuu dhihi jiray kuntu arca alghanama calaa qaraariida liahli Maka sida uu wariyey imaam albukhaari oo saxiixiisa uu ku wariyey wuxuu yidhi waxaan ilaalin jiray buu yidhi ariga ayaan magaalada Maka dadka degan u ilaalin jiray waxaana ku ilaalin jiray buu yidhi xoogaa saliid ee lacaga ayaan ku ilaalin jiray waxaa ilaahay uu ka xifdiyey nabigeena calayhi salaatu wasalaam kana ilaaliyey waxyaalaha xilligaa dhallinyarada nool xilligaas dhallinyaradii noolayd waxyaalaha ay caadada ka dhigteen ee cayaarta iyo fisqiga iyo tumashada iyo xaaraanta waxaasoo dhan nabigeena ilaahay ayaa ka xifdiyey subxaanahu wa tacaala
مرة النبي إسكهد لهي أو إسكشكين هي أي مثيري ما هممت بشيء مما كانوا في الجاهلية يعملونه غير مرتين كل ذلك يحول الله بيني وبينه ثم ما هممت به حتى أكرمني الله بالرسالة قلت الليلة للغلام الذي يرعى معي بأعلى مكة لو أبصرت لي غرمي حتى أدخل مكة وأثمر بها كما يثمر الشباب فقال افعل فخرجت حتى كنت عند أول دار بمكة سمعت عجفا فقلت ما هذا فقالوا عرس فجلست أسمع فضرب الله على أذني فنمت فما يقظني إلا حر الشمس فعدت إلى صاحبي فسألني فأخبرته ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ودخلت مكة فأصابني مثل أول ليلة ثم ما هممت بعده بسوء حديث كاس أيضا قد شكينها يا نبي عليه الصلاة والسلام حلقي الورد وهنجر هنا يرمي عليه الصلاة والسلام يلقي وحيالها كاهلية المجتمع عن كل حمراء أي سنين جرين يلقي السماء اسم لهم بير بلان عن سماء اسكدها قلبك إذا مسوا جرين بيري فحشة إيا عيارته إيا كمشة إيا بخت إيا جاهلية كجري جرين إن عن سماء يلقي اسكمت بيين بيري قلبك إذا مسوا جرين لغمر مويه مركز ترى إلهي إيجا علينا يبير حبان حتى السماء سراه يغير مرة ميل أنا أريد إسلام إلالين تفني أيها المرة وحنكو يريد يريد ورموه أريد إسلام إلال ثم يالي المكاء أهده وإما يالي المكاء أوفى شاكيستا سيدا بالغيرد وإيش شاكيستا ميل كي وانسلين بيريد وانكو سيلا أن أريد أرد وفى شاكيستا وان بحيث يريد النبي عليه الصلاة والسلام فحن سؤال مريد يريد مكاء كي يريد وغير إيكي يريد waxaan ugu yiri maxay tahay qayladan waxay dhahan buu yiri guriga waa arooska agtiisa ayaan fariistay buu yiri anigoo markaas isla dhageyso dirdaanka iyo kumashada meesha laga wado dhageyso anigoo isla Ilaahay subhanahu wa ta'ala labadooda dhageed buu ka masaxay buu yiri inaan maqlo arooskii iyo qayladii iyo kumashadii wuxuu Ilaahay ugu soo tuuray buu yiri hurdo meeshii wuxuu dirq ku hurdo waxa la sameeynayo iyo waxa maragtaa la tumanayo iyo waxa qayla dhacaysa ma wala socdo dirqu rasuulka kaleey salaatu wasalaam waxa uu toosiyay buu yiri sidii qoraxda kuleelkeedii ayaa meeshii uga toosiyay buu yiri waxaan dib ugu laabtay buu yiri ninkii saaxiibka ah hayaariga uu ilaalinayay wuu su'aalay buu yiri qisadii ugu dhacday ayaan u sheegay mar kale ayaan habeen kale haddana ku yiri buu yiri warmii hayaariga uu soo ilaali magaaladii markii aan tagay ayaa haddana hurdo ugu dhacday buu yiri hurdada aan ka sheekaysan waayay ayuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskaas ayaa waxa wariyay sheekhan la yiraahdo ibn al-Asir waxa kale wariyay xaakim oo uu ka wariyay sayyidina Ali ibn Abi Talib maruu xadiiska sanadkiisa xaakim uu ka hadlayna wuxuu yiri waa xadiis saxiix ah ala shart muslim waxa kale xadiiska wariyay Tabarani oo wuxuu ka wariyay Ammar ibn Yasir marka xadiiskaas ayaa wuxuu yahay ama qisada saxiix ah oo sal iyo raad leh iyo qisadaasi oo nabiga calayhi salaatu wasalaam intii dhalinyarada ahaa in xataa ilaahay uu xifdin jiray subhanahu wa ta'ala ee waxyaalaha maaragtay xumaanta ah iyo dambiga ee ilaahay ka xifdin jiray subhanahu wa ta'ala walidaa sidaas ayaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam weligeed hal dambi uusan ka dhicin sagiiran wa kabiiran dambigaas ama ha yaraado ama ha weynaado xilligii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dhalinyarada ahaa iyo xilligii uu maaragtay weynaaday intaba weligii dembi yar iyo dembi weyn midna ma uusan samaynin nabiga calayhi salaatu wasalaam marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa dhaqankiisa sidaas ahaa waxay ahayd sunnadiisu inuu isagu shaqaysto markuu soo koreeday oo u weynaaday oo markaa istiqlaal uu muujiyo awoodkiis intaas soo koriyey bal ayuu nabigu isku dayahayey inuu maaragtaahay oogaa gooni uu u baxo oo isagu bal uu wax isku taro ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam u go'aansaday
waxaad qisada walaalayaal ka dareemi kartaan in nabigeena calayhi salaatu wasalaam akhlaaqiyaadkii xilligaa jiray iyo dhibaatooyinkii xilligaa jiray inuu ilaahay ka xifdiyey subxaanahu wa tacaala. waad garanaysaan dhallinyaronimadu dhibka ay leedahay iyo fudaydka ay leedahay waad garanaysaan. maca daalika laakiin dhallinyaronimada uu soo maray nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo shabaabkaa uu soo maray isagoo ku dhex jira xilligii maaragtahay adduunka ugu fisqiga badnaa ugu jaahilnimada badnaa isagoo ku jira ayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam weligii hal dembi oo yar iyo hal dembi oo weyn midna uusan faraha la gelin nabigeenu calayhi salaatu wasalaam. taas ayaa marka walaalayaal ku dayasho mudan oo dadka maaragtahay dhallinyarada ah laga rabaa inay taariikhda nabiga sidaa u tixraacaan oo markay dhallinyarada yihiin ay iska xifdiyaan waxyaalaha faalxumada iyo tumashada iyo fisqiga sida nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa ay ahayd. casharkeena ayaa intaa ku eg. wabillahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.